بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكا برونو ويدينتا What is a consumer loan? Consumer loan waa deyn ay bangiyada bixiyaan oo ay siiyaan macaamiisha si ay ugu gataan walxaha u gaarka ayaga sida gaari ay isticmaalaan, guri ay degaan ama deyn ay waxbarashada iskaga bixiyaan. Haddaba sugnaanta deyntan waxa ay noqon kartaa 3 nooc. 1. deyn sugan oo leh damaanad buuxda. 2. deyn qaybi ay sugan tahay qaybna aanay lahayn wax damaanad ah. halka midda saddexaad ay tahay deyn aanan sugnayn dib u bixinteeda. xog dheeraada oo ku saabsan 3dan nooc fadlan ka dhageyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. marka ay imaato deyn bixinta waxaa laga rabaa qofka macmiilka ah lacagtii asal ahaan uu qaatay iyo dulsaarkii lagu heshiiyey. waxaana deyntan badi dib loogu bixiyaa 2 nooc oo kala ah mid loo bixinayo qaybo halka midda labaad ay tahay mid hal mar la wada bixinayo kuna beegan dhammaadka muddadii lagu heshiiyey. xog dheeraada oo ku saabsan deynta bangiyada fadlan ka dhageyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii Rabbi idmo.